kulan looga hadlayay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaana ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, siyaasiyiin iyo xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. Kulanka ayaa mas'uuliyiinta gobolka iyo siyaasiyiintaba waxay kaga dhawaaqeen dagaalka dhanka Al-Shabaab. walaalayaalow waxa qof walba oo Soomaali uu ka dharagsan yahay waxa Al-Shabaab yahay. qof hadda isu sheegay qofkii dhuuma lahay kii ka cabsan lahay kii soo hor istaagi lahayba waxa ay yihiin waa laga dharagsan yahay. marka anu waxaan rabaa warkayga laba qolo inaan ku hagaajiyo. marka koowaad hadda ka hor anoo macallin oo jaamacad jooga nin yaqaan nimankaas ay la hadlo wuxuu yiri sidiisaba shabaab ninaan u haysan inaysan dileen bisay bedelaan. ninka oo ka dhiifoon oo dagaalka kula jira waa difaac uga jira waa iska celiyaa waa gaada diyaar garow uga jira ma aadan masaakiinta marasta qof biibita ku shaqeena nin masaajid ka soo baxay oo iska dukanayo oo tartiib u soo socda horta dadkaas ay gaadaan. marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay arag nima guyaysan gaadina aan iska wada dhicino oo wada istaagno. maxaa yeelay reer Galmudug hadii qayb uga shaqeeyna ka maqnaato dagaalku qabiyo noqonaya midaas weeye mid maanta loo fadhiyo inaan Galmudug dhulka maqana Galmudug ka maqan yahay Galmudugna in lagu wada difaaco. marka ilaahay mahadi maanta waa la wada joogaa dagaalkaas madaxweynuhu cilaaminayo iyo madaxweynihii horena hor u sheegay yaan u taaganahay aanan rabnaa inaan kaalintanada ka qaadano aanan jecelnahay inaan ilaahay darti u galno haddaan ku dhimanno aan jinno ku galno. waan soo dhaweynayaa shirka socday 3 bari oo maanta lagu soo gabagabeeyay in loo midoobo dagaalka argagixisada Al-Shabaab in looga xoreeyo deegaanada Galmudug. aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida reer Galmudug ay isku abaabuleen muddada hadda aan joognay aan arkayno sida dhinac walba oo reer Galmudug ay isku abaabuleen oo isugu abaabuleen sidii looga hortagi lahaa nimankaas nabadiidka ah argagixisada ah sidii looga hortagi lahaa arrintaas waan la qaadanay waana soo dhaweynay qaybtayadana waa ka qaadanaynaa haddaan xamar joogno iyo haddaan gobolada nahay iyo haddaan dhammaan degmooyinka reer Galmudug nahay saasaan isku warsanay. carabkooda diintii way ka sii dhamaanaysaa talacuma ku jira hadalkoodu iskama toosna markay hadlayaan. marka kuwaas cadawga ah waxaad la socotaan in dalkoo dhan si guud dagaal uga jiray gaar ahaan Galmudug. anaga marka waxaan u nimid ulajeedkeenu ahaa dawladda Galmudug halganka lagu jiro ee dalka iyo dadka looga xoreynayo nimanka noocaas ah aan xooggeena iyo tabarteena ku beerino ra'yigeena iyo fikirkeena inaan keeno saasay ahayd ulajeedada. waxaa si fiican baa naloo soo dhaweeyey si fiicanna runtii maalmihii aan joognay waan uga wada hadalnay arrimihii aan isugu nimid. wafdigeenna waxaa hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka hogaaminayay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed nala socday xildhibaano iyo siyaasiyiin kalena way weheliyeen. marka ulajeedkaasi kaasu ahaa inagu inaan baritaarno oo xooggeena iyo xeeladeena dadkeena dhex nimaadno arrintaas sidii gacan looga geysan lahaa inaan ka wada hadalnay ahayd. waxaa la isla gartay runtii maalmihii aan joognay marnabana aan lagu kala leexan karin in si guud reer Galmudug inay uga wada qayb qaataan la dagaalanka dhiig yacabka cadawga inay uga wada qayb qaataan.